السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا دمان ومد الصوماليات. عليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعني يوافر عليك الدنيا هي. هذا يركب موضوع كسابسن. هذا المعمول كأسنم قولي سبورتي ده. أكادلين deegaanada Sool iyo Sanaag seeya adeeyeen Sool iyo Sanaag inaan doorasho ka dhicin inay ammaan ahayn in la tago deegaanadaasi gaar ahaan dabardalool iyo shidan hawayaan muhiimadda aan u soo fariistay meesha shidan ayay nimankaasi si gaar ah u taabteen waxayna cadeeyeen maamulka hawayaan nimankaasi horena waa cadeysteen nimankaasi horena waa cadeysteen dadkaan muudin inay filan yihiin oo aan dhawaaqinay baraabshada uga sheegaynay haddana hadalkoodii oo aan wax ku daahnayn wax ku duugnayn in deegaanka maamulku duulaanku ahaa waxaan la iska soo horreysiyay ee jabhadda ana qabaa'ilka ana sawir ay ahayd sidii uu maamulku gacan ugu dhigi lahaa oo loo dhaafi lahaana odayaashaasi ay cadeeyeen oo afkooda laga dheehanayo wuxuu ka dhawaajiyay in ay maantii dhaweyd la tegay meesha hore loo dhaafo in hore loo dhaafo ay ahayd wiiri hawayaan maamulka SNM horena wax ma aanan qaybsan wax isuguma darsan wax isuguma kaay jirin maamul lama dhisan baabal khiyaama ayaana ka jirtay muddo dheer 20 sano ah xubno yar shakhsiyaadka laba saddex qof oo xildhibaan isku sheega ayaa caqabada ugu weyn oo gobolka Sanaag laga haystanaga ahayd xubnaha gabi ahaan isu soo duub macnaha xubnaha afduubka gobolku afduubna waanu ka tashanay go'aan ka gaarnay iyadoo xubnahaasi caqabad nagu yihiin oo meel kasta waxna laga aqbalay aan jirin waxaanu sameynay in aan xubnihii gabi ahaan ka takhalusno inaanay SNM cid isu shiraadaa jirin deegaan aan leenahay codayna ka dhicin maadaama maamulkan dagaalkiisa iyo qaabkiisa kan uu wax wado dhul qabsi yahay wax aanu ku leenahay aan jirin wax aanu qaybsanayna aan jirin deegaanada iyadina duulaan ku yihiin xubnahaas waanu ka takhalusnay odayaasha afku haysan kari waayeen hadalkii waa caloosha waa lagu hayn waayay horena waan idinku sheegay nimankaas inay banaanka wax soo dhigaan wax yar taabtaan banaanka ayaa la soo dhigay maamulka SM iyagana cadeeyay cid kasta waan la wadaagnaa beesha caalamka dawladda dhexe ee Soomaaliya federaalka maamul goboleedka Puntland State madaxda ka yahay Sayid Abdullaahi Lini in nimankaasi ay bareereen ee media soo dhigeen ee baraha bulshada soo dhigeen in ay dagaal cad kula jiraan nimankaasi in ay dagaalka cagta kula jiraan deegaanadana ay ahayd hore intii isku shandhaysnayn isku walaaqnayn in la dhaafo meesha gacan lagu dhigo cida aan fariinta u dareyno dadkaan kala hadlayno arrimaha ama cida ay khusayso hadii ayna jawaab ka bixin hawayaan annagu dad muuqda oo qaran ayaan nahay goboladana annaga ayaa iska leh SNM sida khaldan isku daawan tahay rabto Soomaali weyn inay uga goodo ma aan garan waayin Soomaaliya in ka taaleeg cirada leh eelashida deegaanka cidii lahayd waynaga gooday deegaankaasina saasuu ku tagay nimankii deegaanka lahaa waa deegaankaasina saasuu ku tagay buu leeyahay odagaas wuu tagay hadii laga hadlona khasaara ka dhashay buraa ku dhintay khasaara ka dhacaya
muxuu golaha guurtida waa fadhiyey markii dhibtu socotay oo aan ka hadlay SNM nabaddu inay been afka baarkiisa tahay nabad ka jirta aanay jirin waqtiga muxuu uga hadli waayay deegaanka cidda uu maanta leeyahay way go'een oo way tageen deegaankoodiina waa raacay lagamana hadli karo waqtiga xaqdarrada iyo dulmiga uu waday soo wax muuqda maaha golaha guurtida markii meesh barnaamijka kala waday oo dadka jirtay badayntay waday koobay ka ahaayeen mar walbana cidda kiiska qabsanayso gacmaha ku dhigayso kala bedelaysa bay ahaayeen maanta wuxuu leeyahay deegaanka cidii lahayd way tagtay deegaankuna saas ku tagi lagamana hadli karo khasaara ka dhacaya hore muxuu oran waayay ilaa rusheeg bay rabtaa arintu haddaan wax ku daamnin deegaanka reer kana iskale maanta uu leeyahay way tageen warsan geelba maxay uga soo yeeri weyday soo baabal khiyaamo iyo wixii aanu ka hadlaynay oo cad halka kama ay muuqato hadaada wada u sameeysid cidii ku ogol nin ma khasbi karo idinku wax leedii geystay jirin cid dhibaatadii geystay jirin ayaad Soomaali waana la xasuuqay iyo waa go'ayna taagantiin wax leedii geystay namjid saraakiishii gobolada mudug baraagaas inta ku dartay maanto cid walba leh ka soo jeedeen musuq xasuuq badan baa gobolada waqooyi Soomaaliya ka geysateen hadda u dambayso oo maamulka jabhadan ah haysatid baa xasuuqyo fara badan ee tii kal shaalay ku ka taagteen boorama wixii ka dhacay looga xasuuq baan dal uga ganaatay dadkan dhibaatada u geysateen oo misla leedin masiirna la wadaaga iyo dhibta aad tisanaysan cidiba idii geysay see suuqa anaga isku ay qabatay musu weyn yahayn galkaayo daana galmudug baa ku tadana Puntland gobol Sanaagna inta ka soo gashan degmada ceelfin ka soo gashan ayaad maamulaysa waxa weeyaan bareerahan cad oo deegaankii naf iyo maal bareebtay oo dhiig badan ku daatay oo wali xabada la isla horfadhiyo maamulka SNM uu cadaystay in uu dagaalka ku jiray deegaankana gacan la rabay in lagu qabto dadna loo xalaaleeyo systemkoodii hore oo ahaa waxaanu nahay Soomaaliland xuduudii Soomaaliland baanu doonaynaa lixdanka xurmada laga qatay waa bedeleen system ka bedelan oo qabaa'il ku dagaalama deegaanka dhulkana oo leenahay maamulkuna ku soo raaco oo gacan ugu dhigo lahaanshaha dhulka iyo maamulkii oo xukumaya in la isku dul qabto ayuu nuusabiixi barnaamijka u bedelay horena waan uga hadlay dhowr jeer khudbadiisa ku jirtay ninkii 5 kiiloomitir oo deegaan oo beelo kale leeyin soo xareeyay inuu libin iyo abaalmarin leeyahay golaha guurtidana cadeysay qabaa'ilkii Girxijis in la dagaalamayay ay mar walba aan ka dhawaajin jiray in dagaalka SNM aan ka madhnayn oo dhameystiran in ay dabada kaga labnaayeen kuna fashilmeen ciidamadaasi inay nimanka raacaan hadallada bal dib u dhuuxa golaha guurtida maalintii nimanka in ciidan kale la raacsiyo bahaydo xagga loo dhaafo wayna fashiliyeen nimankaas way ceebiyeen bicada deegaanka lahaanshihiisana in la rabay qabaa'il lagu qoro maamulahaana gacanta loogu dhigo xawlaana marka musuq ninkii waa la amiirsay hadii aanu islaamnimo dhowranay hadaan Soomaalinimo dhowranay hadaan dhig islaamiyadiinay diyaar baan saaqo nahay jabhadeyn gurileyn iyo khasaare dhaca sababtoo ah meel kasto oo cid xilka haysta beesha SNM ay ka hadasho banaanka ayay soo dhigayaan dhibaatada iyo caqabadaha ay wadaan iyo cadaawada ku duugan waxa weeyaan ergaaw barnaamijkii goortu iska dhamaaday maayirka degmada Ceerigaabo 30 sano wiil habar yar soo garxijista baad dul fadhiyay waa ku anaanuubi laba shakhsi ayaa ka sharaxay maqlayay uu ku jiro gabi ahaan beesha reer shaqaysta waxay soo fadhiisatay miidiyaha way ka soo hadashay deegaan baa cid Ceerigaabo ka dhawaaqayso Ismaaciil loogu cisho Ismaaciil hal qabto anagu markii hore fiilaa alxamdu waxaan leenahay ina baradhow barnaamijkaas kaga horena waan uga hadlay waan kala hadlay iskaga harba sida ay uga harnay weeye Ismaaciil hadaa ku celisan iyo hadii kale maanta waa tashunahay waa jabhad ka shidan ka dagaal galay kow isaga ninka la yiraahdo
ina kulli oo haysta madaxa ninka madaxa bisha casaysta gobolka Sanaag ina kulli iyo rag kale oo badan oo ganacsataa ayaa arintaas si la hadlo jira maxkamadda cid kasta oo maamulka u shaqeeya gobolka Sanaag joogta dagaalkii shidan qayb bay ka qaadatay Ali Foolo hore oo soo daawateen soo hubkii dawladdu u dhiibtay buura ka dejinaya oo tijaabinaya maxkamadduna fadhiinimada intii ku jiray kuwa guurtida waa kuwa shidan wana ka dagaal shidan ciidankii maalintii bayna fashiliyay mari waayay markii dagaal ka dhacay haddaba dagaal nalagu qabsaday baan jirin wuxuu mari waayay ciidanku dagaal baa dhacay 40 nin oo meel gaar ah xeebo jooga baa military iyo maraynis iyo qabaa'il bal isku yimi khasaaranan kuma aan kala yareen 4 iyo 3 nin baa ku kala dhintay waxa weeyaan antii hore waanu ka hayno gaadiida laba gaari bay isku qabsadeen gaari horena waanu ka haynay maxaa la maraadii ciidanku sidiisii buu ahaa goobtina sideed baa loo fadhiyay way suura gal weeyday nin odaya hore wuxuu yiri waa day tulantaa ciidankii erigaabo iyo meed laga soo raray oo aan ka dhawaajinay media ka hadliyay cidii dhageysatay waa ciidanka ninka golaha guurtida ku jira leeyahay nimankii inay maalinta hore u dhaafaan bay wada maxay hore u dhaafaan waxa ka soo rareeya waa rag waxa ka soo rareeya waa bir xabada sideed mid lamada balsta yani meesha sida uga bareedeen baa ballan inoo ah jabhadii dadka culuq la siiyo falan oo falku haysto in badan wax baan u sheegaynay laakiin waxaan u maleynayaa maanta hadaladiina iyo codkayga waqtiga ay dhageystaan inay garowsanayaan cidii ku sii hadhay meesha oo cuno iyo leefleef ka doonaysa maanta wixii laga bilaabo cidii ku sii hadhiisan noqota oo magac arti sheegataana arti awayaan ariba ila yaa ku badan waradaygu wuxuu yiri ninka magaciisa ma garanay war shidan toorta shidan maxaa ka shidma shidan qabiilki deegaanka qabiilkiina waa inaga go'ay deegaankaasina waa tigay waa lama taabtaan tago dad hore ku dhintay khasa timid ka balaaran baa dhacay waa runtii oo wallahi oo billahi oo tallaahi hadii ilaahay nafta noo daayo taakay taaleeg oo damaca ma heedig aan la xisaabin ayaa ku daadanaya run ayaa sheegtay xaqiiqo ayaa ka dashay haddii aadami ibaashi asnam iyo raashik isxaaq iyo muuse bixi gabi ahaan ba cadaysayna horo aad meesha ku idinkoo hore ugu daabnaa meesha libi ku weydeen idinkoon ku daabnayn libi ka gaari maysaan haddaad cadaysay wax saxiixa oo xaqa kalaamu saxa ayaad ka dashay dhibardaloosha ay ka hadleen iyo gabi ahaanba gobolka sool arrimaha dagaal ee qabaa'ilka ka dhaxmara sabab waxa uu ah nimanka reer Sheekh Isxaaq ee sanam anagu waxaan ku cadeynaynaa inaanu islaamnimo iyo dhiig islaam dhowrayno bini'aadantinimo iyo soomaalinimo dhowrayno derisnimo iyo walaalnimo dhowrayno waxaan ku cadeynaynaa Sool iyo Sanaag gobolada Sool iyo Sanaag dadka u dhashay beelaha harti dagaalkii ceelaf weyn ee u dhaxeeyay habar Yunis iyo habar jeclo SNM waa jabhad goortay ama sheegan waxba ka qaban weyday beelaha harti ayaa meesha tagay xabadii iyo dhibaatadii khasaarii Suudiina joojiyay agsaaray laakiin deegaanada aanu leenahay waxaan ognahay oo xaqiiqo ah in ay dagaalka iyo dhibta ka dhacay koow ka yireen isku dirka beelaha walaalaha ay dhulbaante waxa ka koow beesha asri ninka la yiraahdo in Cambaashi oo hay jooga ka ciidamada gobolka Sool jooga in Cambaashi waxaan leeyahay sarkaalka tala kula gudbiyay SNM waxa ay soo wada iska yar media waqtiga ay ka hadlaan waxaad maqlaysaa nimanka xisbi saddex xisbi qaran haysta qaybtood islaamnimada baday ku yar xaqiiqada kala hadlo Faysal al-Waraabi iyo muus kulli xaasiyaad barre oo bini aadan ilaahay abuurtay oo islaamaha ashhadanayay in la yiraahdo maan walba ay ku dhawaaqaan shaydaankii alla ku macalad gaalki war waa qof dhinto bini aadan ilaahay abuurtay islaam
ما dulqaadan karno wax aadaan u leenahay hadhow hadii laga xanaaqay maxamed siyaad barre shakhsi islaam oo Soomaaliya oo daarooda ayuu ahaa wanaag uu qabtay gobolada waqooyi mooyee xumo uu gaar uga galayna ma ay jirto ninka afkiisa ka soo yeedhayso meeti inaga hooseysa isagoo ah waa gaal iyo warjiin aayad Ilaahay adeegsanayaan isaga ayaa ridiyay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجين كيف يقول هاي ما ذيك سميستي قول كإله هنا قفل ذيك ستان حق مياه يدوك كتب يسكون نقطة وعويا قبل الله السول يسناج يعين ووح عن موسو لون تدي مرين وانا قاعد يدين وح ما يلقى بسني اللهم حرستي كنا دي سيلا يقبل المنيو xildhibaan bulqaas waa naga hooseeyaa waan u ducaynayaa marka hore ilaahay u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuriyo ilaahay waxaan uga baryaynaa addoon ilaahay baan ahay inuu jannadiisa geeyo xildhibaan bulqaas ayaa hore uga dhawaajiyay nin geesiya adag aan gaban buu darsan hoolka golaha baarlamaanka wax iskuma darsan wax ma qaybsan wax inooma qaybsan dawladii iyo anfaceedii 90% ka haysta dhowr xubnood anaga khiyaar iyo nagu deeqan cilmisan meel aynu isugu nimaadno wax heshiis iyo dastuur samaysan dastuurkeeda lama samaysan taana hore oo aqbali weydin weydii socon waa aqbali weydin tabiina xunka ah ayaa halka idin gaarsiiyay hawayaan nimankan iyagoo cirale iyagoo odayaala iyagoo guurtiya iyagoo xil sheeganaya ayay qabayl farlaad saakadayaan anagu ma afka iyagu ma karomiya waxaan ugu baaqaynaa beelaha harti gabi ahaan in ay tashadaan oo wixii u quman oo u toomoon raacan damiirka gabadha yareed garatay ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ay hor istaagtay roodo oo tiri madaxweyne masiirka Soomaaliya sanaa ka hadal beelaha harti ee goboladan ku nool miyuu ka maqan yahay damiirkaas saaka hadaba waxaynu eeg waqtiga farmaajo jawaab inaanu hayn buu sheegay run buuna sheegay xaqiiq buu sheegay sababtoo ah maamul xildhibaanadii golihii ciidajinta ku jirtid cid ka furfuraysa ma jirto maanta meel fiican aynu taaganahay deegaanayna doorasho kama dhicin waa in la tashadaa talo la gaaraa nimankani sida ay iyabay isku daaban yihiin oo isaaq oo magac daarood dhigma isugu duumeen meynagoo harti ah ayaa leenaga waayay damiirkeena miyaa dhintay mar walba waxay ku celceshaan Puntland yaa la khiyaameynaya anigoo harti ah Puntland waxay ka timi ma jeerteen oo harti ah dhulbaanto harti ah baa la rabaa saddex waji waa sheekadii saddexda dibi asii dibi madoobi Soomaaliya aan garanay sheekadii saddexda dibi ma jiro Puntland hadday timaado waan weeraraynaa sanaag ba asana marba ka soo yeedha Puntland tabana sayid wani kama jeerteen oo iska balay deegaankan iska balay aan fadhiyo gobol sanaag iyo ninka dhulmaanto iska aan ku dul fadhiya warta arintaas waa arin la yaab leh ninkastoo la shaqeynayna saaka waxaan leeyahay libaaxyada ugu weyn oo maanta la socdo waxa ku ka in Cabaash aan xumaan saa ku dareemeyn dadnimo ay ku jirto nin adag ah aan jilicsan ahayn oo la baalkeen karo way marka yara la ahaado codka gogo ay hawada iriya meeshan jooga khad ku yaryahay ina Cabaash maamulka hadda khaatumo ina falaalu tiri Cabdirashiid waa ehelka oo kula dhashay waa tolka waa kaaga sokeeya Muuse iyo Faysal oo naar afuufiya waa kaaga sokeeyaan maamul ahaan iyo dan ay isku wadataan ba ku wada socotaan balse in aad ka fiirsatid ninka kula dhashay inuu ninku kaaga dhigo ajaanib isagoo on dhalasho kula wadaagina uu isaga ka dhigo dhinacaaga iyo garabkaaga waa mid aan shaqeynayn
ودي أولا كله السنم كجبح موقف كده ما هيو لكن تلاهان تمير كين ما ينسين كرا إن بيلا هرتي كمدا ليرادو جبيها مسؤول سنة كم أركرم وأجنبي annagoo isaaq oo Soomaali weyn ba ku nacnay midabkii Soomaaliyeed ba uga tagnay dhibaatooyin ay oo daarado geystayna waan idin la joogayna oo khasab aan idin la wardamidnaga mid hirgeli karta ma aha waxa weeyaan beesha SNM iyo Muuse Bixi waxaan leenahay qabaa'ilkiina iyo labadiina gobol inaa ku ekaataan ayaa jecel lahay dhulboobku mid hadda ku amaaha garada Soomaali waa ka wada dhirigsan tahay ceelaf weyn oo degmada Ceerigaaba ka soo gashaan ayaa dhubaanta lahaa beesha Yaxye banacadiye Karamaan waxa weeyaan dulqaad inta ka badan malihin shantaasaan ka xignaa iyo xabad caaradeed wax dambe damac dambe waxaan ku darsanay ma jirto billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh